waxaan ahay tusaale nool oo muujinaya in helidda hal fursad ay bedeli karto noloshaada. Dhammaadkii 2020 markii aan ka soo baxnay imtixaanka dugsiga sare oo ay soo baxday natiijadii fasalkii form 4ka. Natiijadii soo baxday oo aan ka filayay in aan ka mid noqdo dadka kaalmaha hore gala. Sababtoo ah waxaan ku haweynaa in aan ka mid noqdo kaalmaha u horeeya si aan ugu helo scholarship. hooyo waxay igu wargelisay inay jirto minxay bixiso Hormuud Salaam Foundation waxayna igula talisay in aan u diyaar garoobo imtixaankeeda aan gudbiso codsigayga. deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation waa deeq waxbarasho oo sanadle ah oo tii ugu horeysay nooceeda ah way bixinayso shirkad Soomaaliyeed. deeqda waxbarashada waxaa loogu talagalay ardayda Soomaaliyeed ee ka soo baxay dugsiga sare gaar ahaan kuwa aan awoodi karin inay aadaan jaamacad. waxaan xasuustaa dareenkayga maalinkaas inuu iskugu jiray walaac iyo rajo maadaama arday fara badan ay la galaysay imtixaanka. booskii aan ka fadhiyay hoolka imtixaanka wuxuu ku aadanaa meel daaqad ah. waxaan xasuustaa inaan ku duceystay maalinkaas anigoo fiirinaya daruurta in Allah subxaanahu wa tacaala uu sahlo fursadda minxadan qofkii markaas ugu baahida badan. deeqda waxbarasho waxaa loogu tartamaa 3 furan laga soo bilaabo markii la dalbanayo ilaa imtixaanka markii la galayo intaba. kadib markii aan ku guuleystay imtixaanka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation waxaana loo qabtay xaflad soo dhaweyn ah midaas oo noogula sheegay shuruudaha minxada iyo sidoo kale kulliyadaha aan ku guuleysanay iyadoo loo fiirinayo darajooyinkii aan keensanay. haddaas waxay bartaan kulliyado ama takhasusad aan isleenahay in dalka iyo ayaga ay ugu jirto faa'iido iyo inaan doorano jaamacadda aan rabno. waxaan doortay aniga jaamacadda Hormuud kulliyadda Computer Science. bilowgii jaamacadda hay'addu waxayna siisay kombiyuutaro naga caawinaya waxbarashada sidoo kaleetana waxayna siin jirtay koorsooyin joogto ah xilliyada fasaxana tababaro kordhinaya aqoonteena. ardayda waxaa loo sameeyaa kulan bilo ah oo muxaadarooyin kala duwan dad kala duwan oo khubaro ah ay u jeediyaan. markii fasaxa la gaaro waxay leeyihiin barnaamij tababar ah oo ugu talagalnay in aqoontooda guud aan kor ugu qaadno oo loo yaqaano mataqaanaa summer course. sanadkii saddexaad markii aan soo gaaray waxa ay foundationkana siisay internship maadaama aniga kulliyadeeda ahayd computer science waxa aan ku qaatay qaybta ICT-da ee shirkadda Hormuud waxaana ka faa'iiday aqoon iyo waayo-aragnimo badan. waxaan ka mid ahaa guddigii ka shaqeeyay aasaasidda naadiga ardayda Hormuud Salaam Foundation oo ah urur ay ku mideysan yihiin dhammaan ardayda minxada iyo ardayda Al-Nuur waana urur hadda shaqeeya. waxaan sidoo kale ka shaqeynay sameynta guddi doorasho kaasoo sameeyay hanaankii iyo habraacyadii doorashada midaasoo dhalisay in la doorto gudoomiyihii ugu horeeyay ee naadiga. waxaa la mahadiis ah in ugu dambeyn sanadkii 2024 oo Allah subxaanahu wa tacaala ii suurageliyay inuu ii soo dhamaado safarkii dheeraa ee waxbarashada jaamacadda oo aan ku guuleystay inaan helo shahaadadii jaamacadda. kaliya kama dhignayn inaan helay shahaadadii waxay iga dhignayd inaan kasoo tallaabay caqabado badan oo iga horgudban. leeyahay Basra waa laba jeer guuleysto waaye oo markii koowaad ku guuleysay jaamacadda in si scholarship ay ku dhigato haddana ayadoo jaamacadda scholarship ku dhiganaysa in haddana firfircooni iyo muujis inay ka faa'iideyso scholarshiptaas ay ka faa'iideyso aqoonteeda ay horumariso dadaalkeeda ay ku darto. maadaama maamulka Hormuud Salaam Foundation ay la socdeen waxbarashadeeda iyo dadaalkeyga waxay ii soo bandhigeen fursad shaqo. kadib markii aan maray habraacii saxda ah ee shaqaaleysiinta waxaan ku guuleystay inaan ka mid noqdo howlwadeenada Hormuud Salaam Foundation. waxay sidoo kale chance u heshay inay dib uga shaqo bilowdo hay'adda Hormuud Salaam Foundation. طبعا كقيبgalkeedaas ay dib uga howlgashay isla hay'addii imtixaankay u soo gashay oo ku baasay jaamacaddii haddana markay ka baxay dib ay ugu laabatay waxay ku gaartay dadaal. shalay waxaan ahaa qof ay garab istaagneyd hay'adda Hormuud Salaam Foundation maantana waxaan qayb ka ahay garab istaaga ay bulshadeeda u fidiso.